tirada gaadiidka yar ee xambaara dadka Muqdisho loona yaqaano bajaaj ayaa ku soo badanaya magaalada. Mukhtaar Yaasiin Cali waxa uu muddo hal sano ka shaqeeyaa wadida bajaajka. waxa uu aaminsan yahay soo badashada bajaajka ee Muqdisho inay yareysay faa'iidooyin badan oo ay heli jireen. Markii walba waxa ku shaqeyn jiray Madiino $13 $8 ah ugu yar. Kan boorki $5 ana ku nabar 4 joog $5 ku qaadi jiray. Kullee wixii iga suuq la'aan dhacday oo mar walba soo badatay dibkii meeshii jira adana mar walba adiga suuqani oo isku xun yahay ciidan mar walba ku tabadaagan yihiin kullee xidaadi ina adiga qof khayr lahaa tahay ina xidaadi biil jira waa laga fiican yahay baashaan kullee xawaay ilaahay kama xirin mar walba kullee baashaan iska aaminsanay hal mar aad ku aruurinayna biriga dhan ordka ardayna $22 ina macal shidaal macal credit wixii oo dhan ku furaan. Bajaajku waa gaari fudud oo si sahlan kugu suurageliyay in aad waqti dhow ku tagto meel fogaan ku jirto oo aad maalintaas u muraaday. Waxa badi isticmaala ardayda iyo dadka kale oo meelo ka fog xaafadahooda u shaqo taga. Yuusuf Xuseen Aadan waa milkiile bajaaj isagoo gaadiidkiisa saaran ayuu iga waramayaa waxa ku dhaliyay in shaqadan uu qabto. soo gasho xamaalinimo qaranka xamaalay marka loo ku isdib boqol ka dhigay ya sida horena ma xaaladda waa maalmeed kale loo qabaa wala ana hadda maalin dhawada tarbuunka aan joogo aan gar gees iga dhacay fish traffic liigi nacalka baydaan idiligi soo bixinay $60 iga qad. Kororka bajaajka ee Muqdisho ayaa bedel shaqo u noqotay boqolaal dhalinyaro u badan kuwaas oo laga soo tarxiilay dalka Sacuudiga iyo kuwa kale oo ka yimid dalalka dariska la ah oo muddo badan Muqdisho ku shaqo la'aa. Cabduqaadir Cali Xuseen waa wiil dhalinyaro ah waxa uu shahaadada koowaad ee heerka jaamacadeed ka sameeyay daraasaadka Islaamka iyo qaanuunka sanadii 2013 ayuu ka baxay jaamacadda Muqdisho. Hadda waa wade bajaaj isgooska kilomitir 4 ayaa kula kulmay isagoo oo wato bajaaj midab buluug ah leh. duruufo ay ugu weyn tahay shaqo la'aan ayuu ii sheegay inay baday kaxeynta bajaajka. waxa loo ordayo waxa waa profit ama wax faa'iido ah marka aniga fast waxa ahay macallin iskuul waa iska kansal macallin bas midda $150 lagu siinaa marka arrimaha ma kaafin karo future waxyaalo badan oo hor yaal saas awgeed ayaa igu qasabtay inaan bajaajka aan ka shaqeeyo ama aan iibsado. 2013 jaamacadda Muqdisho aan ka baxay الشريعة والقانون أما الشريعة اللو مركز ظروف وطن كجرا أوجسي أرمي أمني أيان فدي تخصص كي أو شيء كذا لا محكمة التجل هذا كلا يدي كلا بقى سونو بردنا قف جامعي قمر كل شيء يعني أمني جيس بقول كيف كنت لما مسوي كرو كأرومها الزرع يعني أمبرت على وطن. ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka Muqdisho ayaa aad ugu dadaala kala xakameynta iyo heerka shaqo ee mootooyinka bajaajka loo yaqaano. Sidaas si lamid ah waxaa jira xarumo bajaajka ka shaqeeya Muqdisho loogu qaado lacag canshuur ah iyadoo dhalinyarada kaxeeya bajaajkan ay arrintaasi aad uga cabanayaan. Aweys Maxamuud Jilcow, Royal TV, Muqdisho.